bismillaahi raxmaani raxiim golaha wadatashiga qaranka ayaa caawa oo ah 24 bisha Febraayo sanadka 2022 waxa uu kulan habka fogaan aragga ah ku yeeshay shir ay uga arrinsanayeen dhamaystirka doorashooyinka kuraasta dhiman ee golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya maadaama waqtigii hore loogu heshiiyay in lagu dhamaystiro doorashooyinku uu ku eg yahay 25 bisha Febraayo 2022 oo maalinta berri ah ku beegan kulanka oo shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane injineer Maxamed Xuseen Rooble waxa ka qayb galay madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Filish kulanka ayaa golaha wadatashiga qaranka waxa ay uga hadleen ajendayaal ay ka mid ahaayeen xaaladda doorashada mudeynta soo gabagabeynta doorashada golaha shacabka xal u helista arrinta deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbaharey iyo xaaladda abaaraha ee ka taagan dalka golaha ayaa bogaadiyay horumarka laga sameeyay habsami u socodka doorashada ilaa iyo hadda oo la soo doortay dhammaan 54 xubnood ee golaha aqalka sare iyo 157 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka taas oo u dhiganta boqolkiiba 71 tirada guud ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya golaha wadatashiga qaranku dood iyo falanqayn dheer kadib waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin in doorashada xildhibaanada golaha shacabku aysan ku soo dhamaanin xilligii loo qorsheeyay ee 25 Febraayo 2022 golaha ayaa isla qiray in ay jireen caqabado dhowr ah oo sababay dib u dhacan kuwaas oo ay ka mid yihiin xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan oo dawlad goboleedyada saameyn weyn ku yeelatay xiisado amni oo ka soo kordhay deegaan doorashooyinka qaarkood iyo culaysyo jiray oo la xiriiray dhanka dhaqaalaha loogu talagalay in lagu fuliyo doorashooyinka haddaba iyadoo la tixgelinayo arrimaha kor ku xusan golaha wadatashiga qaranku waxa uu isku raacay qodobadan soo socda in doorashada dhammaan kuraasta harsan ee golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo ugu dambeyn 15 bisha Maarso 2022 goluhu waxa ay isla qaatay in ra'iisul wasaaraha oo la tashanaya madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland uu u diro guddi soo qoymeeya xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbaharey kaas oo ka kooban xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo gudiyada doorashooyinka si ay uga soo tala bixiyaan habka ugu suurtagalsan ee doorashadaasi ay ku qabsoomi karto 3 goluhu waxa uu xoojiyay muhiimadda ay leedahay ilaalinta qoondada haweenka ee 30% ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya 4 goluhu waxa uu walaac iyo qayladaan ka muujiyay xaaladda ka sii daraysa ee abaarta dalka ka taagan waxa uuna shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ka codsaday in la kordhiyo gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay saameysay 5 goluhu waxa uu shacabka Soomaaliyeed uga mahad celinayaa dulqaadka iyo sida uu u garab istaagay qabsoomidda doorashada 6 goluhu waxa uu bogaadinayaa doorka iyo taageerada beesha caalamku ay la garab taagan yihiin dhamaystirka arrimaha doorashooyinka